جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. waxaan idinla wadaagi doonaa haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu idmo kelmad aan u bixiyay dadka waad ka duwan tahay oo ka koobnaan doonta ilaa 6 qodob. qodobka koobaad waa dadka ha isku cabirin, bini'aadamka ha isku cabirin. haddaad bini'aadamku isku cabirtid oo qiyaasta adiga naftaada inta ay qiimaheedu uu leegyahay aad hadba ka aragtid bini'aadamku sida ay yihiin, waxaan shaki lahayn noloshaada niyad jab fara badan baa soo gaaraya, dhaawac fara badan baa soo gaaraya. adigu waxaad haysatid baad xaqiraysaa, ilaahay wuxuu ku siiyey baadan ku mahadinaynin. naftaada waxaad isu arkaysaa wax liita oo aan meel kore gaari karin. laakiin waxaad ogaataa marba hadduu isagu meeshaa gaaray aad jeclaysatay adna waad gaari doontaa, dhankaad doontidba nolosha ka eeg. qodobka labaad, muran wakhtigaaga ha ku lumin. muranku waa waxa maanta fadhi ku dirirada dadka fariisiyey. muranku waa tan ay dadku barnaamijta ka soo diyaariyaan in uu qofku social media ha noqdo ama TV-ga ha noqdo ama idaacadaha kale raadiyaha ka baxa ha noqoto, waxa war uu ka soo qaaday saacadda iyo labada u dhagaysanayay ayuu maalinta fariisto wuxuu kaga sheekeeyaa 5 saacadood oo kale. haddii dhanka kale laga fiiriyo qof aad og tahay waxa aad kula murmaysid ama aad murankiinu inuusan waxba natiijo ah dhalinaynin, isaguna kaasuna ma mudna. qof baa tusaale ahaan aad nolosha rabtayna mustaqbalka la wadaagtid, laakiin asbuucii 5-6 goor baad murmaysan, waxaan micno lahayn baad isku haysataan. qofkaasu waad u jeedaa inuusan waxba horumar lahayn. sidaa darteed waqtigaaga muran ha ku lumin. waqtigaagu waa qaali, dibna uma heli karaysid. sidaa darteed ma mudna in aad qof bini aadama murankii ku lumisid waqtigaaga. wax faa'iido leh oo fara badan baa badan ee kaga faa'iideyso si aad dadka horumaray uga mid noqotid. waxaadna ogaataa nolosha qaybteeda hoose dadku aad buu ugu badan yahay, qaybteeda korona dadku aad buu ugu yaryahay. waxaan u malaynayaa inay tusaale taasu ku noqon karto. qodobka saddexaad, naftaada ha yasin. dad fara badani naftooda way caayaan, waxaa ma qaban karo, waan liitaa, waan ogahay inaanan ku fiicnayn iyo wax la mid ah. awood ma lihi, hebel oo kalaan ahay, hebel wax buu bartay, reerkoodaa lacag u leh, halkaa waxa gaarsiiyey waa dadkiisa iyo wax la mid ah. naftaada ha u quurin ereyada noocaasa. waxaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku mahadisaa horta waxa uu ku siiyey. waxaad garataa in Ilaahay uu awood uu buuxdo u leeyahay inuu ku siin karo waxaa, laakiin dadaalkeeda la imow. qodobka afaraad, goor hore subaxii kac. saacadaha ugu muhiimsan noloshaada waa goorta ugu horeysa waagu markuu bariyo. kac. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan u maleynayaa kelmaddan inaan kelmadahona ku soo qaadanay, laakiin haddaad doonaysid adduun iyo aakhiraba inaad guulaysatid, haddaad doonaysid adduunka inaad dadka ka horumartid, dadka waa inaad soo kicitaanka waa inaad kaga horraysid. maxaa yeelay intay jiifaan ilaa 9 subaxnimo qofka hurda, haddaad 5 hurda ka kacday wax fara badan baad qabsatay. quraan baad akhrisatay, axaadiistaad wax ka baratay, bugaag wax ku taraysa oo maaragtay adduunyadan horumar ku gaarsiinaysa wax ka akhriday, naftaadaad wax bartay, waad jimicsato, exercise baad samaysay. maxaan idhaahdaa waad kacday oo markaa waxaad gudagashay maalinimadaada inaad maaragtay meeshay shalay joogtay aysan joogin aad maanta ka horumarisin. waxaad ka qayb qaadanaysaa maaragtay miitino adiga wax kuu taraya oo faa'iido kuu leh baad ka qayb qaadan kartaa. wax fara badan baad qabsan kartaa, ehelkaagaad wax fara badan tari kartaa. naftaada marka waxaad bartaa inaad goor hore joodariga subaxii ka kacdid. dadka adduunka aakhiraba guulaystayna calaamadaha ay lahaayeen waa inay goor hore joodariga ka kacaan. haddaad se joodariga ku dambaysid waxaad ogaataa noloshana waad ku dambaynaysaa. qodobka shanaad, awooddaada isugu keen maanta. dad fara badan awooddooda way kala dhantaalan tahay. shalay qayb bay la tagtay oo wuxuu ka fakarayaa shalay wixii ku dhacay, wixii soo gaaray khalad, wixii maaragtay uu gafay. taasaa awooddiisii qayb ka mid a qaadata. qaybna waxaa qaadata berriduna maaha mid Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku ballan qaaday. kurbadeeda iyo walwalkeedu waa maanta waxa aan samaynay inaan hagaajiyo.
بريدو معها مد مدن نتكول وشيد مركا هدي أدون نقطه ومانتا يدونك كوجود دنبيسو isbedel kastood maanta aad samaysaa waxba aad bari ku tarimay maxay ilma bay intifaacsani sidoo ka dhimatay xagga cibaadada markay noqoto maanta waxa aad samaynaysid ayaa ku muhiim ah bari oo ah markaad aakhira aadid adduunka ka tagtid adduunka dad sa joogtid maanta waxa aad samaynaysid xoogaaga oo dhan markaad isugu keentid waagu bari markuu ku bariyo waxaad dareemaysaa inaad darajo kale nolosha taagan tahay waxaad dareemaysaa hadafka iyo meesha aad ka tiigsanaysid noloshan inaad u dhawaatay sida darteed ku dadaal inaad awooddaada maanta isugu keentid dadka waxa in fara badan tabardarrada ay la dareemayaan waa niyad jabka ay shalay ka qabaan dadka waxa in fara badan awooddarrada ku abuuraya waa walwalka ay bari ka qabaan sida darteed bari laguma ballan qaadin inaad gaaraysid maanta isugu keen xoogaaga iyo awooddaada iyo fikirkaaga qodobka lixaad oo ah qodobka ugu dambeeya faynuusta ku shidan marna ha gaabinin waan ka wado iftiinka ku shidan yuusan kula yaraan meel mugdi hadad ku jirtid iftiin yarna oo ku shidan yahay waxaad dhaantaa iftiin la'aan iftiinka yar oo ku shidan wuxuu sabab u noqon karaa inuu darbi walbaba ka leexiyo sidoo ku wadana iridii aad ka bixi lahayd oo aad qorraxda iyo banaanka u imaan lahayd inuu ku geeyo sida darteed inta yar nolosha aad ka haysatid hadday noqoto cilmi hadday noqoto xoolo hadday noqoto karti iyo dadnimo hadday noqoto cibaado inta nolosha aad ka haysatid ee yar yeysan kula yaraanin mar walbana waxa dhiirigelin ku ah waxaad haysatid haddaad gacanta ku haysatid $2 waa laga yaabaa in $2 ay laba kale ku dhali karto maxaa yeelay $2 waxa ka horeysay dollar la'aan gacmaha waxba kuma jirin marba haday wax soo galeen waxay ku tusaysaa waxaas inay soo gali karto iyadoo tira badan maxaa yeelay $100,000 waa kumi la isu geeyay sax sida darteed inta yarood haysatid marna yeysan kula yaraanin dadka quusta la wehelka ah ee noloshaada ku wareegsan iska goob qof baad mustaqbalka rabtaa oo maanta la sheekaysataa 3 jeer ilaa 2 jeerna niyadda waa ka jabiya asbuuci rag iyo dumar ku doonaba ha noqdo qofkaasu hadduu ku quuray inuu waxa dhibsatid sameeyo asbuuci 2 jeer ilaa 3 jeer oo asbuuci ilaa 3 jeer 2 jeer waqtigaagu waa qaali san soo sheegnay enerjigaagu waa qaali naftaadu waa qaali ma mudna inay ku baxdo qof murugadii oo meel inta fariisatid dhafoorka qabsato ka fakartid oo naftaadu ay cabsi ka buuxsanto oo u aragtid qofkana dad ka tagtid noloshaba inaad qof kale arkayninba dead end meeshii ugu dambeysay noloshaada sidii inaad taagan tahay oo kale oo qofkaas sidii inay katiinada kuugu xiran yihiin aad waliba rajo ka sii qabtid mustaqbalna la wadaagtid adoo maanta asbuuc walba muran ka bixila taasu ma aha natiijo wanaagsan kuma tusayso mustaqbal iftiimayna ku soo bixi doono waxa soo bixi doona mustaqbalka in badan dadku ay dareemaan markay guursadaan oo ah gumaysi iyo ciriir baan ku noolahay haddii qofka marnaba aadan ka arkaynin in uusan wax horumar lahayn oo horumarkaaga oo dhanba uu ka dibdhigayo oo uusan kugu kaalmayninin oo uusan kugu taageersanayn qaabka aad u nooshahay nolosha waxba noloshaada stress ku dilin ma mudna inaad enerjigaaga iyo waqtigaaga ku bixisid qof bini aadama qofku waa inuu dhiirigelin ku noqdo waa inuu ku noqdo qofku farxad geliya waa inuu noqdo qof kugu kaalmeeya hadafka iyo yoolka aad doonaysid inaad gaartid waa inuu noqdo qof markaad murugaysan tahay aad farxad ka raadisid ma aha mid markaad murugaysan tahay iyo markaad faraxsan tahayba murugo kugu soo kordhinaya sida darteed dadka kugu wareegsan gaar ahaan kuwaas dadka ay ka mid yihiin oo aad maanta dareemaysid in aad ku xiran tahay cabsiduna ay kugu jirto qofkan hadaa ka tagtid malaha qof kaleba ma helaysid maxaa yeelay waan jeclahay dadka noocaasi noloshaada ma mudna inaad waqtigaaga iyo enerjigaaga ku bixisid waana waxyaabaha ugu qaalisan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siiyay hadaa doonaysid inaad ku bixisid wax qaaliya meelna waxaad ku bixisaa cid qaaliyo mudan waxaad ku bixisaa cid mudan oo istaahil u ah shayga jazakumullahu khayran
ilaahay waxaan weydiisanaynaa dhammaanteenba inuu ku kaalmeeyo noloshan aan noolnahay ee adduunyo iyo nolosha aakhiraba. subxaana rabbika rabbi alcizati cama yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.